واتهاي هالكن وفيسبوك بردورو ان وريوين ألوس راديو رويال أيو كترسينياي ان isaga ayaan wax ka weydiin doonaa hal sano ayaa markaasi u gashay muddadii uu joogay Radio Royal oo ka howlgalayay Alos isaga ayaa ila joogo fursada ku helay maadaama maalintii ahayd sanad guulis la hadid ka dhaaso oo hal maalin saafilay meelaha soo wareegtay fursad aan ku weysnaaba howlihii idaacadu ku jira fursad oo ku weysnaa waxa uu dhahayay sug hadda galabta helay marka Alos soo wadoohay Cabdirasaaq Barduura adiga iyo dhamaan saaxiibadaada ku taxan page-kaaga Cabdirasaaq Barduura waxaan leeyahay galab wanaagsan Alos Cabdikariin Ciise Alos waa sanad guuridaada Radio Royal ka warbixi taas aad iyo aad farxad ay tahay inaan muddo hal sano ku sugnaado idaacadda Royal Muqdisho farxad weyn ay tahay dhamaan inta ay taageertay farxad u tahay inta ay taageertay dhamaan waa salaam ayagana farxad weyn ay tahay inaan muddo hal sano ku sugnaado 20kii December ay ahayd markii aan ku soo biiray 2018 idaacadda Royal Muqdisho xilligaasi oo ahayd xilli aad ugu farxad badneed oo aan saxaafadda ku soo biiray iyadoo idaacadda RBN uu ahayd idaacaddii ugu horeysay aan ka hadlo aan codbaahiye ka sii daayo marka waana markii ugu horeysay marka loo fiiriyo idaacadda Royal waxaana ii dhaqan gashay muddo hal sano ah ayaa si toos ah ugu dhaqan gashay marka aad ugu faraxsanahay farxadeedana lama soo koobi karo markii idaacadda ku soo biirisay hadda maxaa isbedel ugu soo kordhay wala isbedel weyn oo jiro idaacadda markaa ku soo biiray waxa jira waxyaabo far badan oo iga maqnaay laakiin haatan aan ogahay waxyaabo badan oo hadda aan ogahay jiraan oo aan fahmay oo ayaa jira oo dhanka saxaafadda marka loo fiiriyo idaacadda markaa ku soo biiray waxyaabo far badan aan ka haystay oo haatan iga khaldanaayeen waa jira waxyaabo khaldanaay oo hadda iska saxay way jiraan marka loo fiiriyo idaacadda marka loo fiiriyo radio markii aan ku soo biiray aniga ahaan waxaan ku soo biiray qaab farsamo ahaan ugu soo biiray laakiin hadda qaybaha hadalka xitaa waan sii bartay marka aad ugu faraxsanahay inaan heerkan hadda aan taaganahay ka tagnaado waxaan sii jeclahay inaan heerka sii sare aan sii gaaro barnaamijka xogsada la dhaho 3 saac ama 9 aan dabcan ana ku farsameeyo barnaamijka la doorka daayirta ka qabataa mishada muuqaalka dhalinyarada oo kale oo qaban jirtay marka ka bar hamigaada idaacadda wallahi hamiga idaacadda aad ugu yahay saxaafadina si jooga barnaamijyo badan oo soo qabto jiraan idaacadda marka loo fiiriyo laakiin hadda waqtigan hadda la taagan yahay laba barnaamij oo kaliya ka qabta wax xogsida iyo doorka marka loo fiiriyo labadaas barnaamij oo kaliya warkii dabcan waa gashay iyo warka habeennimaha marka loo fiiriyo jadwalkaas ayaan ka galaa laakiin barnaamijyo hore ayaa jira oo la soo qaban jiray barnaamijyada dhalinyarada oo kale kuwa galabtii iyo kuwa habeenkii iyo habeenka marka loo fiiriyo marka barnaamijyada aad u badan yihiin marka hadan waxa si jeclahay inaan idaacadda horumarkeeda aan qayb ka noqdo sanadka inaan si toos ah la sii joogo asxaabta dhammaan ugu horeeyo agaasimaha idaacadda Royal Muqdisho Asad Maxamed Yuusuf Asadiye FM kina waad aragtaa in la xoojiyay oo wax lagu daray hadda maanta waqtigan kula hadlay 22ka December aad iyo aad farxada ay sii tahay in macnaha idaacadda meelo badan oo hadda aysan gaari jirin in hadda ay gaarto sidoo kale taageerayaal far badan inay yeelanayso idaacadda aad ay u farxad gelinaysaa oo taageerayaal far badan oo ku soo biirayaan dhageysigeeda badanayso marka dhammaan dhageysiyaasha idaacadda dhageysto waxaan leeyahay hambaliyo leeyahay aad baad maastay Alos Cabdikariin Alos oo hal sano u gashay muddadii uu joogay idaacadda Diyaawi ayaa kamid ah wariyaashii la joogo oo hambalyeynaya Diyaawi wallahi raanti Cabdikariin Alos iska bilaaweyn raanti maanta aad iyo aad ana waxaan leeyahay hambaliyo maadaama oo ilaa iyo hadda hal sano oo